السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلهانتينا بقى مeel kastoo caalamka joogtaan ku soo dhawaada war degdeg ah. Gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu yahay xildhibaanka rasmiga ah ee matala kursiga Hoob 86. Gudoomiyaha ayaa warmutiyeedka uu soo saaray maanta oo taariikhdu oo tahay 16 bisha 12 sanada 2022 waxa uu ku cadeeyay in doorashadii Fahad Yaasiin uu galay ay ahayd mid sax ah isla markaana dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waafaqsan. Gudoomiyaha ayaa waxa intaas ku daray inuu si qoto dheer u eegay doorashadaas isla markaana uu tixgeliyay codsiyo uga imaaday dowladda Hirshabeelle, madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo weliba xildhibaanada dowladda Hirshabeelle. Gudoomiyaha ayaa waxa uu yiri waxa lagama maarmaan ah in beesha kursigaas kale ay hesho matalaad, isla markaana waxaa xuquuq darro ku ahaday in ay ka maqnaadaan baarlamaanka Soomaaliya xilligii uu jiray. haddaba su-aasha isweydiisa mudan ayaa waxa ay tahay maxaa Fahad Yaasiin lagu hoostay oo baarlamaanka Soomaaliya loogu diiday doorashadii oo galana loogu tilmaamay mid aan waxba ka jirin. dowladdii hore uu ra'iisul wasaaraha ka ahay Maxamed Xuseen Roble ayaa si toos ah u diiday doorashadii uu galay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. haddana waxaa arrinkaasi ogolaaday isla markaana si toos ah u ansixiyay Mudane Sheekh Aadan Madoobe oo ah guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. haddaba daawadayaal, adigu sidee kula tahay arrinkan? yaa saxan? Fahad Yaasiin doorashadii oo galay miyaa saxneeday? waxay ahayd in lagu celiyo doorashadaas mase in si toos ah iminka loo fasaxo? su-aasha kale waxay tahay maxaa lagu haystay Fahad Yaasiin? Soomaaliya hadda ma u muuqataa mid arrintaasi u dulqaadan karta, maadaama xildhibaankan ay jireen xildhibaano la mid ah oo kuraastoodii sidan loogu diiday? daawadayaal, hoos noogu reeba sida aad u aragto warqadan ka soo baxday guddoonka baarlamaanka iyo go-aanka uu gaaray ma yahay mid sax ah mase waa lagu naqanayaa? waa mahadsantihiin.